kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta falanqeynta sida aad la socoteen wararkeena hore aan idinkugu sheegnay waxaa galabta ama caawa maqribadii la filayaa in si toos ah uu u furmo koobka adduunka ee sanadan lagu qabanayo wadankaasi ruushka. haddaba waxaanu ku eegi doonaa dhowr waxyaabood oo ku saabsan waqtiga xafladda ay dhici doonto, dadka kasoo qeybgalaya iyo halka ay ka dhici doonto, iyo weliba arrimo dhowra oo kale oo ku saabsan xafladda furitaanka ee koobka adduunka. marka ugu horeysa xafladda furitaanka ee koobka adduunka waxay dhacaysaa 14 bisha June oo ah maanta oo khamiisa saacada 5:15 geeska Afrika iyo waliba waqtiga Makka al-Mukarrama ee wadanka Sacuudiga. waxaana ay socon doontaa 1 saac bar waqtigaas oo iyadoo markaas noqon doonta kadib in la baaso ciyaarta sida rasmiga ah Ruushka iyo waliba Sacuudiga u dhexmari doonta. waxay ka dhici doontaa xafladda garoonka lagu magacaabo Complex Luge ee ku yaala caasimadda wadankaasi Ruushka ee Moscow. garoonkaas ayaa waxaa loo aasteeyay inay ka dhacdo ciyaarta furitaanka, waana garoon qaada dad ku dhow 80,000 oo taageerayaal ah, waana mid ka mid ah garoomada ugu qurux ee wadankaasi Ruushka ee loogu talagalay koobka adduunka. dadka jooga Afrika iyo bariga dhexe waxay ka daawan karaan telefishinada kala ah PN Sport, mandiqada telefishinka la yiraahdo mandiqada bariga dhexe, telefishinka sidoo kale la yiraahdo PN Sport HD oo isagu ah iyo BN Max HD1. ciyaaraha carabta dabcan waxa xusuusid mudan ciyaaraha carabta dadka jooga wadamada bariga dhexe iyo waliba geeska Afrika. ciyaaraha carabta waxay ku daawan karaan si maaragtay bilaash sida daraadeed waxaa soo deynaya telefishinada badan oo carbeed sida telefishinada laga leeyahay wadankaasi Morocco oo hadda aan idin sheegno la yiraahdo Sharqul Awsat iyo BN Sportyada nooca furan. ciyaarta waxaa ka qayb galaya furitaankeeda fanaaniin caan ah. waxaa kamid ah fanaanada caanka ee heesta ee Ingiriiska caanka ee Robbie Williams, taasoo da'deedu ay tahay 44 jir, waana fanaanad si weyn qarnigii la soo dhaafay ugu caan baxday heesaha wadankaasi UK iyo waliba qaaradda Yurub. maray ka hadlaysa Williams ayaa waxay sheegtay inay tani aad u tahay inay aad ugu faraxsan tahay furitaanka koobka adduunka inay ka qayb gasho. waxayna tiri aad baan ugu faraxsanahay, mana qiyaasi karayo dareenkayga farxadeed ee aan Ruushka ku tagayo. tani waxay ahayd mid aan wax badan oo tan la mid ah hore u soo sameeyay, laakiin furitaanka koobka adduunka oo horteeda kumanaan taageerayaal ah oo garoonka la jooga iyo malaayiin kale oo dunida iga daawanaysa waxay ahayd riyo aan ku haminayay ilaa iyo yaraanteeda. sidoo kale ciyaarta furitaankeedu waxaa ka qayb galaya fanaanka caanka ee reer Mareykan ee William Smith, kaas oo isagu si la mid ah hees ka qaadi doona gaar ahaan heesta lagu magac daray Life It Up. ciyaarta dadka ka qayb gali doona waxaa kamid ah Luis Nazario da Lima Ronaldo oo la sheegay inuu goobjoog u ahaan doono koobka adduunka furitaankiisa. sidoo kale waxaa jira khubaro kale oo iyaguna goobjoog ka ahaan doona haddii ay noqon lahaayeen ciyaaryahano, fanaaniin iyo waliba xidiga kale oo kubadda cagta ku saabsan. wixii kala tafaasiira waxaad ku dhageysan doontaa xubinteena falanqeynta dambe.